xilli lagu guda jiro gabagabada bisha barakeysan ee Ramadaan ayaa magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose waxaa deeq raashin lagu gaarsiiyay qaar ka mid ah dadka naafada ah isla markaana danyarta ah ee ku dhaqan magaalada Kismaayo. deeqdan oo ka timid shirkadda Somali Relief oo fadhigeedu yahay waqooyiga Mareykanka ayaa waxaa loo qeybiyay qaar ka mid ah qoysaska danyarta ah isla markaana naafada ah ee ku nool magaalada Kismaayo. deeqda oo ahayd raashinka noocyadiisa kala duwan ayaa qoysaskan la siiyay xilli ay aad ugu baahnaayeen isla markaana ay tahay gabagabada bisha barakeysan ee Ramadaan. markii deeqda qaybinteeda la soo gabagabeeyay ayaa waxaa halkaas ka hadlay qaar ka mid ah dadkii deeqda loo qaybiyay waxayna ka mahadceliyeen deeqda ay soo gaarsiiyeen jaaliyadda Jubbaland ee ku dhaqan dalka dibadiisa. alxamdulilaahi rabbil caalamiin walaalaheen khayrka ay siiyeen jaaliyadda ah oo hambalyeena ilaahay khayrkood Allah na siiyo. Somali Relief waxaan qaatay raashin baa la siiyay. raashinkaas ugu jira bariis iyo bur sokor iyo baas iyo saliid baa la siiyay. khayrkood Allah na siiyo. ilaahay intii baxsatay oo igana naqalqaaliyeen ilaahay khayrka Allah siiyo. ilaahay waxa uu mahadinaynaa khayrka siinay intaas ayagana Allah jaariyadaas Allah khayr Allah siiyo. Allah kulli baan adduunka aakhirna Allah u shafeeco. waxaana waana la siiyay waana qaadanay maanta khamiista tahay waxaana waana la siiyay xaq baan la siiyay ilaahay idinkiis khayrkood Allah siiyay. السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وحان أمهد علينا ولا لهن نسوق أرسية ديق ذانيتو Somali Relief أو كندا دقن. السلام عليكم. ما markii ugu horeysay ee jaaliyadda Jubbaland ee ku dhaqan dalka dibadiisa ay deeqa kala duwan soo gaarsiiyeen dadka reer Jubbaland ee ku dhibaataysan gudaha dalka gaar ahaan kuwa danyarta ah waxayna arrintan daba joogtaa xilli muddooyinkii la soo dhaafay oo maamulka dowlad goboleedka Jubbaland jaaliyadaha ugu baaqayay inay ka qayb qaataan caawinta dadka danyarta ah iyo sidoo kale kuwa dhibaataysan ee ku dhaqan deegaanada Jubbaland.